sida la ogyahay in muddo ah waxaa ka socday maamulka Khaatumo iyo qolada Soomaalidiidka ah reer waqooyiga ah wada hadal u dhaxeeyay baa jiray wada hadalkaas oo waqtigan ku soo gabagaboobay siyaalo aanu cuntami karin dadka reer Khaatumo meel kasta joogaanba hadalkaygu maanta wuxuu daaran yahay inaan aragtida aan ka qabo iyo guud ahaan shacabweynaha reer Khaatumo fikirka ay ka qabaan iyo sharciyan dastuuriyan intaba inaan faahfaahin ka bixiyo baan halkan maxaan ku raadayay saxaafadda horteeda u maalinkan maanta sida la ogyahay waxaa soo bilaabmay 8 bilood ka hor wada hadallo u dhaxeeya Somaliland iyo Khaatumo oo ka bilaabmay magaalada Caynaba la yiraahdo ku xigay Addis Ababa oo 2 jeer waftiga tageen Djibouti laftigeeda guud ahaantood marka la isku soo xooriyo shirarka qodobadii ka soo baxay ma aanay noqonin wax midho dhal ah oo dadka reer Khaatumo u cuntami kara masiirkooda iyo mustaqbalkooda iyo rabitaankooda midna wax wuxuu goyn kara ama wuxuu noqon kara kama ay soo bixin haddeer ugu dambeysana shirar baaba ka socda magaalada Hargeysa intii maalmahan ahayd shirarkaas oo iyaguna daba socda kuwii hore dhammaan marka la isu geeyo arrimahaas oo dhan waxay dhalayaan waxba la'aan waxay u muuqdaan ama yihiin oo cad kuwa aan ka turjumayn masiirka ummadda reer Khaatumo kuwa aan muujinayn wixii Khaatumo loo aasaasay kuwa aan daliil ugu jirin ummadda reer Khaatumo iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed Khaatumo dastuurkeedu wuxuu qabaa federal system Soomaaliya ma qabo kumana jirto dastuurkeeda maxaan ku radaa ku biirid Somaliland wax la yiraahdo iyo gooni isu taag iyo in maxaan ku radaa Soomaali la kala qoqobo aniga awowgay iyo aabahayba waxay ku dhinteen oo u soo halgameen iyo awoowayaashayba jiritaanka ummadda Soomaaliyeed dariiqa inaanu ka leexanana haddaanu nahay dadka reer Khaatumo qorshe aanu qaadanay ma aha marka laga soo gudbo tan noo gaarka ah oo ismaamul in maxaan ku radaa deegaanadayada iyo dadkayaga iyo gobollada aan degannahay inaanu taladeeda yeelano tan noo helisaa waxa weeye sidii ummadda Soomaaliyeed ay isu haysan lahayd maadaama Ilaahay nagu beeray meesha Soomaali kana kala gooy karto iskagana ooli karto arrintaasi arrin aanu qaadan karnana maaha arrin aanu qaadanayna maaha sidaas daraadeed golayaasha maamulka Khaatumo oo ka kooban golaha sare ee dhaqanka golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka waxaan ku boorinayaa si loo badbaadiyo jiritaanka iyo qadiyaddii Khaatumo in ay shirar degdega isugu yimaadaan deegaanada Khaatumo ay ku sugan tahay oo aanan haddeerto waqtigeeda cayimayn sida ugu dhaqsaha badan wixii ka fayow ee aan qabin maxaan ku raadayay wixii aan qabin in Somaliland ku biiristeeda wixii aan aaminsanayn ee aaminsan qadiyaddii loo aasaasay Khaatumo inay maxaan ku raadayay sida ugu dhaqsaha badan leh meesha xarunta ahayd ee Buuhoodle isugu yimaadaan waa soo jeedinteeda koowaad waxaan kale oo soo jeedinayaa hawlwadeenadii maamulkan Khaatumo u soo halgamay iyo madaxdii saraakiisha ahayd hore loo kala diray saraakiisha ciidamada Khaatumo iyagana waxaan farayaa si gaar ah u farayaa khaasatan saraakiisha ciidamada inay sida ugu dhaqsaha badan loogu diyaar garoobaan kamira dhalinta wixii hore loogu aasaasay saraakiisha u ahaayeen bulshooyinka reer Khaatumo ama gudaha joogan ama dibadda joogeen waa inay iyakuna waxaan leeyahay soo jeedinaya inay midnimadooda iyo jiritaankooda inaan wax shaki gelin baan soo jeedinayaa inay u midoobaan sidii ay uga marya dhalin lahaayeen wixii loo aasaasay ee doonistoodu ay ahayd ee rabitaankoodu ahaa baan soo jeedinayaa gudaha iyo dibadda meel kasta ay joogaanba kuwa ku sugan magaalada Hargeysa
nin cabdi kooreeye la odhan jiray oo magaaladan xamar joogi jiray oo hadda dhintay baa beryihii xamar dhibaatadu ka bilbilaabatay wuxuu odhan jiray wallaahi in suudaan laga soo wareegi kuwa hargeysa ku sugan hargeysa waa magaalo soomaaliyeed cuqdina kama qabno laakiin hargeysa dee taladeeda iyo danteeda iyo shaqadeeda waxay leedahay taladeeda ay leedahay iyada iyo dadka degan magaalada Laascaanood Buuhoodle gobolka Sool iyo Sanaag iyo Cayn iyo guud ahaanba deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ayaan ka soo jeednaa taladeeda cidna uma daba fadhiyo doono cidna uma daba fadhiisanayna waxaan federaalka Soomaaliya oo isaguna wixii uu waajib u leeyahay oo aanu ka filayno inuu ka qaato cid aan ahayn oo aanu daba fadhiyo doona ma jirto haddii Allah awood leeyahay kuwaasina qoliyaha Hargeysa iyo meelaha jooga ama horaha u joogeen ama gadaal ha ka tageen ولينا كسر وريق دونتان محن كره الله السودان وبدوده هاي دول كفوق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أضبان يدونكم هذين يا دمام بصحافة ويا مدن مدحنا حجاب هذا كان مباغنا جديد اسمه كل قبائل مدحوينها مدحوينها wuxuu ku sugan yahay magaalada Hargeysa madaxweynaha waxaan anagu haddaanu nahay maamulka Khaatumo iyo shacabweynaha reer Khaatumoba uguma aanan fadhiin maxaan ku raahdaayay in maanta gorgortanku uu ahaado Soomaaliland baan ku biirana taa mid ka duwan baan uga fadhinay mudan madaxweyne shirar baa waxay ka kala dhaceen Djibouti Addis Ababa waxa looga hadlayay sidii loo dhameeyo lahaa ama khilaafaadka hayay Soomaaliland iyo Khaatumo hadda waxaad leedahay gabi ahaan waan ka soo horjeednaa qodobadii ka soo baxay shirkaasi adeer waxna anfaca kama soo bixin shirarka dhamaantood waxyaabaha diidantii maxaa kamid ah waxaa kamid ah gooni isu taagga Soomaaliland oo anagu wax dhuuntayada aan mari kara aan ahayn